madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa galabta qasriga madaxtooyada ku qaabilay safiirka dawladda Faransiiska u fadhida dalka Kenya Ambassador Alena Casta iyo wafdi ay hogaaminayso oo safar shaqo dalka ku jooga waana kulankaasi intii uu soo lagaga wada hadlay qodobo ay kamid ahaayeen xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa doorashooyinka ku soo foolkale Soomaaliland iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo wada hadaladii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hakadka ku yimi kulankaasina waxa uu ku soo dhamaaday isfaham iyo wada shaqayn waxaana madaxweynaha kulankaasi ku helinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland dhinaca waftigana waxa ku helinaya safiirka la taliyaha siyaasadda madaxa adeega dhaqaalaha gobolka ee bariga Afrika iyo badweynta Hindiya la taliyaha maaliyadda ee gobolka madaxa wakaaladda horumarinta ee gobolka bariga Afrika أحمد زكي داهر حسن وربعين تقرن كقصر مدعتوية Soomaaliland Hargeysa.